السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتا شرفت لسو دوادا دمانتينبا كسو دوادا مدشينا رادسن راب وولالكا شاكر أخيار أو مانتكو وضو موضوع آد مهم نوغو موضوعا وأود قف كستو أو نغميد وليهي لكنسي داد بدن أو نغميد إذن كو براروكسنين وموضوع أن آد وجعلهي أو إسديه كارو أدوهن الصوت ديارين حتى أما آد إسكو صوت ديارين مانتي دادك هرتودا وحواد كديه كاري لهي موضوعا وموضوع نحريستا نحريستا موضوع اللي يراهدو وموضوع أن أد وجعلها أدينكنا dareemayo ama aan u maleynaa aan rajeynayo inaad jeceshihiin naxariista waxaa la yiraahdaa waa waxa ama luqadda qofka dhagoolaha ah uu maqlo waana luqadda qofka indhoolaha ah uu arko naxariistu waa noolahoo dhan dunida joogo waxa ay isku fahmaan ama isku afkartaan oo xayawaan haddaad u naxariisato maantay oo wax yar aad siiso berrito wuu kuu imaanaa oo asagoo kaasoo ag dhawaanaya arkaysa haddaad ul iyo waxyaabo daran kale oo naxariis darro ah kula dhaqantana waxaad arkaysaa berri dambe asagoo kaa fogaanayo marka naxariista xataa xayawaanka iyo aadanaha isku fahmaan marka ereyga naxariis ama la yiraahdo uma baahna u maleynaa inaan qeexno erey ahaan carabi ahaan laakiinse markii la dhahayo arraxma ereyga naxariista la yiraahdo wuxuu ka yimaadaa raxima la yiraahdaa oo ah ilma galeenka hooyada uurkeeda markii ilmaha ku jiraan ilma galeenta meesha ka sii ah oo intaas yar ilmaha ku jiraan marka naxariista badan ee hooyada leedahay waxaa lagu tilmaamaa in meeshaas ay ka timid sida iyada iyo ilmaha iskugu dhow yihiin aadanaha adduunka waxa inta saarana qof sida caadiga ah qof hooyada ka naxariis badan ma jiro marka naxariistu waa midaas yaa ka naxariis badana isleedahay marka hooyadii yaa ka naxariis badnaan karo ilaaha ka naxariis badan oo keli ah adana kama naxariis badnaan karo laakiinse waxaa ka naxariis badan oo keli ah allah subxaanahu wa tacaala waxa marka allah naxariistiisa way badan tahay waxaa la dhahaana diinta islaamka waa diintii naxariista sidoo kaleeto nebi maxamed waa nebigii naxariista ambiyada ugu naxariista badnaa aadanahana ugu naxariista badnaa allahna nebi maxamed markuu safehanayo macnaha mawduucyadan dhinaca diiniga maanta ma geli doono oo daaciyiinta iyo culamaa udiinkan u dayn doonaa laakiinse waxaa la yiraahdaa nebi maxamed wuxuu ahaa nin naxariista ku sifoobay oo hadduuse macnaha qof qalbi adag uu ahaan lahaa maysan soo raaceen dadka badankood gaalo badanna maysan soo islaameen ilaahayna qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin oo ah kuma soo dirin in aad ummaddan u noqoto naxariis mooyaane wax kaleeto kumaana soo dirin oo macnaha ilaahay diinta islaamka inaan soo galno oo annaka muslimiin oo naar ka badbaadna annakay dan noogu jirtaa naxariistaas darteedna waxaana loogu soo diray nebi maxamed oo ah nebigii naxariista ku caanbaxay marka alle naxariistiisana dembi kastoo wuxuu ku leeyahay dembi kastoo gasho inaan kuu dhaafayo waa kuu dhaafayo macnaha inuu dhaafayo shaki yuusan kaa gelin adiga uun soo laabo oo macnaha u toobadkeen ilaahay insha allah biidnillah allah wuu kuu dembi dhaafi doonaaye naxariista marka waxaan iri dad badan oo naga mid ah waa awood oo qof kastoo naga mid ah uu leeyahay laakiinse dad badan oo naga mid ah aysan ku baraarugsanin marka ku baraarugsanaan la'aanta aniga waxaa isleeyahay dalkeena ummaddeena soomaaliyeed waxa ay isku dilayso waa naxariis la'aan ummaddeena soomaaliyeed waxa ay iskugu diidan tahay wax iskugu diidan tahay waa naxariis la'aan ummaddeena soomaaliyeed waxa isku dagaalayso waa naxariis la'aan qodobka labaad macnaha waxyaabaha dalkeena maanta aan ka dareemayo macnaha waxaa isleeyahay isagan waa xaaraantii oo caado laga dhigtay ama dadka caadi la noqotay laakiinse xaaraanta maanta mawduuceena ma aha naxariis darradaas un dalkeeni iyo dadkeeni wixii la gubnayaan waxaa isleeyahay waa naxariis darro ee ilaahay ummaddeena qulubtooda naxariis ha iskugu beero allah dhowr meeruu qur-aanka ku sheegay macnaha ereyga naxariista waxaa la yiraahdaa ama arraxma waxaa lagu magacaabay 560 mar soo gelaysaa qur-aanka 560 mar ay soo gelaysaa ereygaas naxariista ah haddaysan qaldaneen waxaana meesha kusoo qortay
marka maalin kastana bisinka keli ah bismillaah arraxmaan arraxiim laba bisinka keli ah waxa ku jirtaa laba mar oo naxariis ah tii guud iyo tii gaar ahaaneed alxamdulillaah marka alxamdulillaah quraanka oo akhrina ayadana sidoo kaleeto naxariisa ku jirta maalin kasta marka waxay ka dhigan tahay ugu yaraan 20 jeer ka badan 20 jeer ka badan waxaan dhahnaa naxariista ilaahay naxariis weydiisanaa ama ereyga naxariis aan xusnaa naxariista marka qofka aadanaha ah waxay ku leedahay saameyn weyn wuxuuna asagana wuxuu ummadda ku yeelan karaa saameyn weyn hadduu uu noqdo qof naxariisto oo naxariis ku caan baxay waxaa tusaale noogu ah nabi maxamed cadowgiisii ama dadkii isdagaashanaayeen ama gaalada ahay ama dariskiisii oo yuhuud iyo xataa kuwo kaleet ay ku jireen in ayakoo arrintoo saas u adag darteed xataa arrintoo saas u adag haddana wuu u naxariisan jiray ilaa qaarkood ay kasoo islaamaan naxariista marka tusaalayaasha maalmeedka ah aan usoo qaadan karo waxaan dhihi lahaa meeshaan naxariis tusaalaha ugu fudud waxaa waaye adigoo bas saaran oo kaleet kasoo qaad waxaa aragtay hooyo uur leh ama waayeel culus ama qof kaleeto waayeel tabar daran ama qof culus marka in aad qofkaas kursiga ugu kacdid oo dhahdid bal soo fariiso waa naxariis taas waa naxariis qof bariis qalalan wata haddaa aragtid oo xoogaa yaroo macnaha suugo ah siisid ama iidaankiisa yaraay aad ugu dartid waa naxariis sidoo kaleeto qof kugu qaldamay adiga kugu qaldamay qalad kaa galay laakiinse qaladkiisa qirtay oo soo laabtay ku raali gareeyay in aadan kusii jeesjeesin oo dhahdin saas iyo saas aad samayso qof xun aad tahay qararac oo macnaha waxyaabihii xumaantiisa oo dhan aadan ku soo celin aadan ku deginin aad tiraahdid waa horta hore waa awood inaad qaladkaaga qiratid oo soo laabatid oo raali gareysid marka walaalkay waa kaa raali ama walaashay waa kaa raali ah laakiinse mar dambeeto yaysan nagu dhicin arrintan oo kaleeto hadduu ilaahay idmo marka qofka asagana sharaftiisa waa dhoortay niyad waa u dhistay maada ku taagtaagsanin oo naxariis waay arrintaas maxaa yeele wuu kaa qaldamay adigoo wax kasta samayn karo laakiinse haddana waxaa dooratay inaad cafiso aadna ku taagtaagsanin qofkan si yaroo sharaf lehna aad cafiska uga qaadato inuu kuu soo hoyday sidoo kaleeto waa naxariis qofkii asagoo isliiday aragta macnaha qofaa waxaa kuu leeyahay ma qurxooni oo kaleeto asagoo isdhahay gabdhaheeni kas aad tusaale usoo qaadan gabar isliidaysa aragta ayadoo ma qurxooni ku dhehayso ma aad ku tiraahdid gabadha quruxdeeda aad tustid mar kaleeto quruxda runta ahna inay qalbigeeda iyo wanaageeda ay tahay inaad u sheegtid oo gabadhi macnaha indhaha u furtid u soo jeedisid oo ma arkinoo wejigan iyo jirkan kaleeto iyo waxyaabahaas inaysan quruxda bis kale ahayn qiimaha ay leedahay aad tustid qalbigeeda quruxda ku jirto inay quruxda dhabta ah oo aan dhamaanin ay tahay aad tustid oo sidaas aan niyad ugu dhistid inay noqon karto naxariis ayna tahayba naxariis weyn hadduu ilaahay idmo waxaa kaleeto qof shaqo loo soo diiday noqon kartaa in qof shaqo loo soo diiday aad niyad u dhistid oo dhahdid shaqo kaleetaa heli kartaa ama wanaagaaga tan inaysan arkin laga yaabaa inays kugu habbooneyn laga yaabaa shaqadaas meeshaas iyo sidaasaa ku fiican tahay bal xaggana fiiri ayada laftirkeeda waa naxariis gabar waxaa aragtay ama gaban wadada asagoo goynayo ama wadada raba inuu gooyo laakiinse haddana goyn la inaad gacanta qabatid oo aad wadada goysiisid gabankaas yar waa naxariis waay waa naxariis waxaad adartay gabar lagu gardaroonayo oo la rabo guntiinada in laga furo ama garbasaarta laga tuuro haddaad garab istaagtid gabadhaas oo aad gacan siisid waa geesinimo iyo naxariis waa geesinimo iyo naxariis hadduu ilaahay idmo marka ilaahayna wuxuuna leeyahay dhulka iskugu naxariista samada idinkugu naxariisan doonaa dhulka iskugu naxariista samadan idinkaga naxariisan doonaayo marka aadanaha haddaan isku naxariisano nabi maxamed wuxuuna yiri man laa yarxam laa yurxam qofkaan naxariisan looma naxariisto qofkaan maxaa dheh
naxariisan looma naxariisto. Waana ereyadii haddaay bilowga aan sheegayo oo aan dhaha lahaa dad badan oo naga mid ah naxariistu inay awood tahay kuma baraarugsano, oo naxariis darrada waa waxa dalkeena uu la gubanayo maadaama anaka aan isku naxariisan weynay dalkeena iyo dadkeenaba sidaas caasimadda loogu naxariisan la'yahay oo isku dilayaan oo isku dagaalayaan oo wax iskugu diidan yihiin. Marka walaalahay hadduu Ilaahay idmo aan isku naxariisano dadka naxariista waxaa loo moodaaba inay doqon yihiin. Marka waxaa leeyahay naxariistu doqonnimo maahan, naxariista iyo dabacsanaanta doqonnimo maahan ee waa awood aan abid daciifayn. Naxariistu iyo dabacsanaantu doqonnimo maahan ee waa awood aan abid daciifayn. Dadka markaad dhimato maxaad rabtaa inay kugu xasuustaan? Isweydii su'aashaas hadduu Ilaahay idmo. Maalintaa dhimatid dunidan waa ogahay horta kulligeen waa ku wada baraarugsannahay dunidan in aan waqti yar haysano. Marka waqtiga yar oo haysatid dunidan intaad joogtid macnaha intaad nooshahay maxaad rabtaa inaad samaysid? Maxaad rabtaa dadka inay kugu xasuustaan maalintaa dhimatid? Maalintaa dhimatid maxaad rabtaa inay dadka kugu xasuustaan? Aniga waxaan is iri naxariis waaye. Waa naxariis. Qof maalintaad dhimato haddii la dhihi karo qof naxariis badan uu ahaa. Nabiga waxaa la yiri qof waxaa soo martay meeydaa soo mar markaas meydkaas waxaa la dhahaa waa saas iyo saas qof xun uu ahaa markaasuu yiri waa ka run sheegtan qofkaan saas iyo saas uu ahaayo. Macnaha qofna marna waxaa la yiri qof xunaa soo maray marna qof fiicanaa soo maray sidee dadku u maleynayeen. Marka wuxuu dhahay sidaas run Allaha uga yeelo. Aadanihii marka haddii aad noqotay qof naxariis badan oo naxariis lagu tabaayo oo maalintaa dhimato la yiraahdo qofkaas qof naxariis badan uu ahaa. Runtii ani waxaan is leeyahay Ilaahay idankiisa waad guuleysatay. Tilmaantaada iyo sifadaada ugu fiican ha noqoto naxariista inta aad nooshahay. Balanteenu waa raadsan.